kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada Kalmoy Media waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay kulan markaasi goordhow soo dhamaaday oo filla Soomaaliya uga socday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug waxaana la sheegayaa in kulanka marka uu soo idlaaday saddexda dowlad goboleed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib haddana kulan gaar ah markaas uu dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا كلموي ميديا waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay kulan goordhoweed u soo idlaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha markaasi Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulanka saddexda dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug madaxweynayaashooda oo markaasi uu gudoominayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa lagu gorfeeyay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda doorashooyinka caqabadaha hortaagan iyo sidoo kale sida looga gudbi karo waxaana sidoo kale markii uu kulanka saddexda madaxweyne soo dhamaaday kadib kulan gaar ah yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmahan markaasi la sheegayay in labada dhinac uu ka dhex taagan yahay taag markaasi iyo sidoo kale isfaham la'aan aad u xoogan haddaba qodobo muhiim ah oo kulamadaasi ka soo baxay oo Kalmoy Media markaasi heshaayaan idin la wadaagi doonaa iyo waxyaabaha markaasi ku soo beegay waqtigan in dhinacyada ay yeeshaan kulamo ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka intaynu gudagalin faafahinta haday tahay booqashadaadii ugu horeysay kusoo birbartan subscribe saara gambaleelka furo muuqaalkana like saar si uu meel dheer u gaaro like waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka meel dheer u gaaro dhinaca Facebook haddii aad nagala wata intaanu gudagalin haday tahay booqashadaadii ugu horeysay kusoo birbartan oo subscribe saara gambaleelka furo muuqaalkana like saar si uu meel dheer u gaaro like waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka meel dheer u gaaro dhinaca Facebook haddii aad nagala socotana kusoo birbarta Facebook oo follow soo dheh muuqaalkana like t-shirta ha ka hilmaamin hagaaga kulan goordhoweed ka dhacay filla Soomaaliya u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka soo laabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa loogu gorfeeyay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda doorashooyinka dalka khilaafka markaasi hoose ee ka dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaasi uu dareemayo in ay ku sii dhowdahay in saaxiibadan ay saddexda sano iyo barka soo wada shaqeynayeen ay garabkiisa ka baxaan ugu dambeyn marka uu waqtigiisa dhamaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arrinkaasi ka duulaya waxa uu maanta isugu yeeray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen Ali Cabdullaahi Gudlaawe iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaa dhinacyadan dhaxmaray kulan markaasi albaabada u xiran yihiin oo aan loo kala kicin oo maanta markaasi ay isku gabal dhacsadeen dhinacyadani kulankan waxa uu ahaa mid si weyn markaasi warbaahinta looga qariyay marka la fiiriyo xasarada kulankan iyo markaasi xasaasiyadda ama xamaasadda uu dhinacyadan u lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu ka soo laabtay safarkiisii Addis Ababa waxa uu dareemay in la joogo markaasi waqtigiisii dhammaadka isla markaana ay tala farihiisa ka sii baxaysa madaxweyne Xasan oo ka cararaya inay ku dhacdo sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2022kii doorashooyinka iyo maamulkooda gacantiisa looga saaray waxa uu markaa qaaday tallaabo kale oo saddexdii sane ee la soo dhaafay tii uu waday aan ahayn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa hadda markaasi dad badan ay rumaysan yihiin in kulanka maanta uu la yeeshay dhinacyadan uu kaga hadlayay arrimaha doorashooyinka sidii loo dardargelin lahaa iyo sida markaasi uu saaxiibadan u sii haysan lahaa khilaafka saddexdan maamul goboleed kala dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu salka ku hayaa in saddexda maamul goboleedba muddadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay ee ahaayeen saaxiibo markaasi isaga wax la waday laakiin hadda marka waqtigiisu dhamaaday waxa u muuqataa inay garabkiisa ka baxayaan haddaba kulankii maanta dhaxmaray dhinacyadan waxa looga hadlay arrimo badan oo xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxaana ugu muhiimsanaa oo si weyn markaasi dhinacyada ay ugu doodeen arrimaha doorashooyinka waxayna dhinacyadan markaasi isla qaateen in arrinka doorashooyinka markaasi halkii uu markii hore ku sii socday laga sii wado madaxweyne Xasan waxa uu doonayaa in sidii markii hore ay wax ku socdeen loo sii wado arrinka doorashooyinka aan marnaba laga leexanin doorasho qof iyo cod ah oo dalka la aadiyo
laakiin saaxiibadiisa markaasi muddada ay soo wada shaqaynayeen 3 sano iyo barka waxay doonayaan hadda inay meesha ka saaraan damaca madaxweyne xasan ee ah in doorasho toos la aado maxaa yeelay waxaa jira khilaaf gaamuray oo u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud khilaafkaas waxa uu keenay in dhinacyadan markaasi ay ku qancaan inaysan suuragal ahayn labadaas maamul goboleed oo maqan in wax la socodsiin karo muddo 3 sano iyo bar ah iyaga oo markaasi ilaashanaya kursigooda waxa ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud u daba fadhiyeen arrimaha doorashooyinka iyaga oo markaasi u muujinaya daacadnimo laakiin hadda markuu waqtigiisa dhamaaday waxay la soo baxeen weji kale oo ah inay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xiriirka u jaraan iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu markaasi yaraaday xiriirkii telefoon ee dhinacyadan ayna markaasi sabab u tahay inay doonayaan inay meesha ka saaraan damaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana ay dareensiiyaan inay markaasi u socdaan meesha uu madaxweyne xasan doonayo ma ogi meel kale waxaa markaasi kulankoodii maanta oo albaabada u xirnaa ay ka wada doodeen arrimaha doorashooyinka ugu muhiimsanaa waxaana isla qaatay in laga wada hadlo nooca doorasho inta markaasi uusan dhammaanin sanadka 2025 sidoo kalena wax ka bedel lagu sameeyo dhammaan qorshayaashii hore ee doorashada waxay u muuqataa in kulankoodii markii uu soo idlaaday kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haddana mar kale kulan gaara la yeeshay kulankii 3 maamul goboleed madaxdooda uu la yeeshay waxay kaga wada hadleen in markaasi arrimaha doorashooyinka wada hadalkooda uu sii socdo oo aan markaa halkaa lagu ekeenin sidoo kalena ay markaasi iyagu noqdaan dadka markaasi madaxweyne xasan kala shaqeynaya doorashada qof iyo codka laakiin waxay u muuqataa in dhinacyadan ay ka diideen isla markaana ay ogolaan waayeen maxaa yeelay kulankooda waxa gabi ahaanba laga qariyay warbaahinta waxa looga hadlayay ajandaha kulanka iyo markii uu soo idlaaday wixii laga wada hadlayba waxaana taa muujinaysaa in kulanka uu markaasi ahaa mid xasaasi ah dhammaan qodobadii looga wada hadlayna ay u muuqdaan inay yihiin kuwa markaasi sir ah oo ay ka cararayaan in dhinacyadan la ogaado khilaafkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan gaar ah la yeeshay markuu kulankooda guud soo ilaaday cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo cabsi weyn markaasi uu isaga ka qabo maadaama laftagareen uu yahay saaxiibkii hore ee farmaajo welina markaasi dad badan ay ku tuhunsan yihiin inuu yahay saaxiibka dhabta ah ee ka soo haray saaxiibadii farmaajo ee madaxda maamul goboleedyada laftagareen waxa uu u muuqdaa inuu isaga ka cagajiidayo nooca doorasho ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wato waxaana dad badan ay qabaan in intaan la gaarin 2025 dhamaadkiisa laftagareen uu aadi doono doorasho dadban isla markaana mar kale isaga uu isku caano shubi rabo madaxweyne xasan oo arrinkaasi markaa ka cararaya waxa uu la yeeshay kulan gaar ah waxaana muuqata in uu markaasi kala hadlay damaca laftagareen ee ah in uusan markaasi aadin doorasho dadban isla markaana halkii ay wax u wada wadeen markii hore ay u sii wadaan laakiin laftagareen ayaa u muuqda nin waxaasi oo dhan aysan u caddeen isla markaana doonaya inuu qabto doorasho markaasi dadban oo isaga mar kale uu isku caano shubayo waxaana uu doonayaa in uu kursigiisa sii ilaashado nooc kasta uu ku ilaashan karana uu markaasi ku sii joogo kulankaas waxa uu ahaa markaasi mid si weyn warbaahinta looga qariyay saan hore idinkugu soo sheegayba waxaana jira markaasi ilo xog ogaal oo aynu la xiriirnay ay noo sheegeen in kulanka looga hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna ay saaxiibadan ku qanciyeen in la aado doorasho dadban isagana uusan faragelin ku samaynin doorashadooda 2026 bisha May doorashada dhaceysana ay kala shaqeeyaan taasoo aan la hubin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka heli karo in saaxiibadan ay kala shaqeeyaan doorashada 2026 sidii uu soo noqon lahaa oo ma cadda in ay si dhab ah ula shaqeyn doonaan kadib markii ay gaaraan hadafyadooda ama yoolasha ay markaasi leeyihiin wixii warar ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela subscribe saar channelkan gambaleelka furo muuqaalkana like saar